si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horreeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaas ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaaniga oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay canfarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sukayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebahii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isballaadhiso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac, noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kaloo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayay loo oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgi ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galaba waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Cali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar. sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw, Marka, Muqdisho,
warsheekh muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyey 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano abasiiniya amaba etoobiya markii uu arkay damcii reer yurub ayaa boqorkii etoobiya ka talinayay wakhtigaasi emalik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa wakhtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yidhi etoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo etoobiya sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay etoobiya inay mustacmaradu tahay. dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii u sii haysan lahaa dhulkii soomaalida ee uu qabsaday. nin la odhan jiray major nerozanium ayaa wadahadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana etoobiya talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadenaya. dhulkaasi oo heshiis hore ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 ingiriisku uga ogolaaday. sanadku markuu 1897 ayay Itoobiya iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay ogaatay waxa dhacay 30 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abril 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa wedwed iyo bohoole. 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdulla xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa ka mid ahaa magaalada Harar ee dalka Itoobiya, Muqdisho, Suudaan iyo Maka. intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq. dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed. sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiyada. waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899 bishii abril waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qusulka Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay. warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogolla haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya. maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray. 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Itoobiya ayaa markaasi bilaabmay. haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay berbere ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska. anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadari isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay. markaasuu yidhi war waxa kan waa maxay? dee waa diinteenniyo la soo galay. labada dhagax buu qaatay baa la yidhi wuxuu ku dhiftay gaalkii meeshaa joogay oo baadariga ahaa. wuxuuna yidhi ilaahow maantay intaasaan awooda. culamadii reer berbera hadallaa la isku jiiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yidhi baridu waa xaaraan, qaadku waa xaaraan iyo waxyaabo ka mida ayay xoogaa yarahee arrintii laysku maandhaafay. markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada. nin la oran jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi walle ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni. waa la dacweeyey
adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yareh laga jeclayn amaan wax ugu soo roobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayey 2 iskuol oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyey wax lagu baraayey inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magacaa wuxuu yidhi john baa la yidhaahdaa waagii horena maxaa lagu ohan jiray cali sidaas ayuu usii dhaafay baa la yidhi wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa shiikh buu sii maray suldaan nuur axmed ammaan ayuu wuxuu ugu tegey ood weyne wuxuu sii socdaba maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana laysafgartay wuu ka tegey xoolihii isagoo wata wuxuu tegey meel la yidhahdo qoryo weyn oo magaalada burco koonfur bari kaga toosan halkaa ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yar baa dhacay dhowr nin oo dhulbahantaa oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay horey buu uga tegey markii halkaa u egay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen malaha khaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nugaasha iyo dhulbahantaha in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdume meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayey hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe takhalal ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgeriya ayaa markii horeeto hore loo diday oo la ohan jiray jijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay layidhi waa xujoobay la ohan jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayey wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jijiile ma u argalaa guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahee halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaal degin waa ku dabaal degaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaal degey markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la ohan jiray garaad ahaayoo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la ohan jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxay oo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jigjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awaloo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan iyo siyaaraan ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiya war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey rabku siiye xoolaha habar yoonis intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhacoo 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaye la tag dhulka kan dadkiina degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colkaa geelal badan baa laga qaaday geelii 100 halaad baa laga siiyey baa laleeyahay ninkii la ohan jiray shariifka nin baa halkaa ka gebiyey subaxdaas oo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado hasiiskiina abuuradow cimri iyo kusimayo ciribteeda ogaada dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo teliyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa ma aha e wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kirishtan uu dhulka soo gelayo dagaalkaa gaaladu waxay u taqaan siduu qoray douglas jardin samara xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay isku sanadkaas waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin beerdhiga intaas ayaa sanadkaa dhacay
وهاجا كدب halka aan ku joojino oo jaamac Umar Ciise 1900 markay taariikhdu hayd ilaa 1904 iyadoo taageero uu ka helay Ethiopia iyo Talyaaniga ayaa weerar xoogaa Ingiriisku sayidka ku qaaday 17 bishii Abriil sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 189 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waa ta koobaad in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday afarta arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo Ilig bishii March 5 sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kululaa dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxa dabadeed dhacday in Ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyay ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxa dhacay waqtigii loo bixiyey حرام عنا أو معلول آد وبعني أي دعدي رسمي أهان إنجليزكو سنتكي كونو يساقال بقولي يلابية طبانكي وحا وكو قياسي إن محمية ديسي سدح ميلود ميل أهان دادكي كنولا أي دينتين وحا كلاتا أود عضي إنو سيدكي أسو حوغيستي تاسو وحا كانتي إن إنجليزكو بدل استراتيجية ديسي وحا لابابو لعيدا مأوهو قامدي نكي لأورنجر ريتشارد كوفيل أو يساقو دقال لك علي سيدكا bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffey Sayid Maxamed Cabdalla Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffey Coffey loo jiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaanade جهنم لقيه وآخر جهنم نمكي جنوك عي وربي جرين شالعين كواس النار تجوغيو مركات جنان نبي قادت sidoo bahay ku jirabay mari jawaabteeda tarawiish jigrar nagama deyntani iyo jeerkeedeen jigta weerar bay goor barqa anagu jifeeyeen إنجليز جبيو وحا كدعي جعي بارود وليجيس بوالغو جبشا جليب ديكدولان حدان ليس تكرارين تلكي لغا جلرونان وحينو جنجنتين وجما شدينين أنيقنا جكري لاهلي شلي جهد كدين شينيقا هورتي سير رصاص إيقا قجيدين جيدا يضي إلى الدعين جلي عفكودين waxaynu eegaynaa mabdii sayidku lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dawladnimo maxaa taas muujinaya waa tahay waxaan mar kale hadaba idinku celinayaa aw jaamac Umar Ciise oo arintaasi balino ifiya marka balgabayadii uu dalka hadda markaa kula hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu markaa ku sheegayay maaragtay muxuu ahaayay in dawladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraarku kula hadlayay culimada wuxuu yiri doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka waana idma doocina idinkaygu diimaye dalka dibiiseen baa dacarta igu kiciyay waa markay culimadu ku kiceen oo wax ka sheegeen oo yiraahdeen ninka kanu meel uu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka waana idma doocina idinkaygu diimaye dalka dibiiseen baa dacarta igu kiciyay
shan haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degagubi dilaalkii la siiyena dafna kama helaysaan ninkii idin daraabaana ajri iyo ducuu heli dibna deeqa ay eebbahay debinta saari maysaan diin niman lahayni dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayow cadawa ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaa u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne awyaalow ma diideen jihaadka ma u dareertaan danan iyo seef degta maa ku qaadaan darmaan haad laqooqdiyo doolaab maa u fuushaan wiilka diirka qaadka biixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka dakarka maa ka goysaan idinkaa dalkabalee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay ereygaa waxaan u daliishanayaa inuu dowladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkabalee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay mabdi'iisa wixii muujinayey mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dambeeto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan layna shiro haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqleh iyo inan nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruux iga naxa oo iina saba jeegta miyaan waayey naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawe ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku guubaabinayay inay ingiriiska iska eriyaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad soomaaliyeed maxay ku diidanaayeen maxayse doodood ahayd aw jaamac cumar ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey waddaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahaayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka afar gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal afartaa gabay kan ugu horreeya berbera aan ugu horraysiino waa cali jaamac haabiil oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa uuntay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoommuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura e allahayow ma awdo xaqaad soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darane allahayow adaan ee xoqoon eedna aan geline allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaal lihi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umurihii nin dilay ubad jaqsiinaayey allahayow agoon iyo miskiin aadanaha liita allahayow nimaan oday da iyo habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'min ku idleeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecaynin allahayow ibliiska u eg oo aanu garan weynay allahayow mid oogada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku ankiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoonlaawaha eydu daba joogto allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow arooryo iyo goor alliyo leylba allahayow ibliiska khalqigu ka ashkatoonaayo allahayow hanagu eegin ku ergaan nahaye allahayow addoommaanu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahaye waxaan u leexanayaa markaa nin la odhan jiray cali maxamuud samantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabayuu mariyey
sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi i imow xoolaan ku siinayaado waa nin aada loo taxgeliyo ayuu ahaa markaasuu gabay mariyey oo wuxuu yidhi waataan afgaba yeerin jiray yarow ahaantiiye uma yoomo hawd yaalaley hays nin yuururiye ma yagfiyo yaloonkoo cidlo ah yaris nin jiifaaye cusba nebi yacquub bacdalya'si buu yaasafaa yidhiye allena u yeel ducaduu yudayoo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahay u yeel samirkii aayuube tan iyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuu kanaa dhigaye yaa ayuhanebaa laga galiyo bariya yaasiine waxba yaan wadaadoy ka yimi odhanin yaabuuye waxba yuu isiin qaalmuhuu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii yuu tidhi yuu annii rabine yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirine marka waa diidayoo wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal la ysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeto inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday waxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur guray tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la og yahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayriyaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii la laayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diinle cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajimiye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkiiye nin caddaaday oo caalim ah oo madaxa cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa caruusee warmaha ku cadcadoo dila rabbi iyo nebaa laga cuskaday caadam ma ahayne caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo haadda la cunsiiyo rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidmo ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagele mooddo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weydiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacalah ayuu wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran calidhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada dhowrku lama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma darraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen dir iyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxaa mariyey calidhuux gabayadii uu mariyey oo doodda ahay kula doodayey u mariyey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waa cay iyo maaragtay muxuu ahayey
waxaan la sheegi karin haddee waxa la yidhi rag collooday cay iyo abxuma waa camaladoodii waxaa dhegaystayaal intaasna halkaa kaa gudubno waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladdii ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcaddiisa ugu adag ahayd degmada la ydhaahdo taleex waxaa ingiriisku dabeetana halkaasu ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay dabeetana sayidka iyo wixii ka hadhay daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka soomaalida eema ka tirsan dalka etoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan wakhtigaasi ingiriisku ah niman soomaaliya odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagana xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxmiyadda hase yeeshee sayid maxamed cabdilla xasan ergadaasi waa uu diiday wakhti yar kadib sayidka iyo raggiisii waxa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka soomaalida ee degan dhinaca sohdinta etoobiya dabadeedna iyada oo ay taageero ka heleen ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen imey oo ku taala dhinaca etoobiya halkaasi oo ay gaadheen bishii oktoobar sannadii 1920 dhammaadkii sannadkaasi oo ahayd 21 bishii disembar ayaa sayidku ugu dhintay imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxaa da'diisu wakhtigaasi ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka soomaalida ah uu kula hadlayo aw daahir afqarshe haynoo mariyo dallacaad jacayl baad kurtii noola dhirirtene dubaaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukama heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qubaahayaa dib u go'aysaane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu idinka rari sidaa dameeraaye gidigeedba soomaali baan dayrka ka ahaaye dhaxaan darawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabaada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu ishaayeen mantu aan diyaafad iyo guul dareejo eegayay baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka daraawiishtii ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhoweynin maamulka ingiriiska iyo dadweynaha dareenkii uu sayidku ka booday ee dugsigii dhaymoole la odhan jiray ayaa weli jiray sanadku markuu 1920 6 dugsi hoosaad oo la qorsheeyey ayaa waxay u socon waayeen markii la diiday cashuurtii xoolaha laga qaadi lahaa magaalada burcana dhiisi lagu dilay hase yeeshee wakhti dambe ayaa arday soomaaliya loo diray waddanka suudaan kuwaasi oo markii dambe halgan u galay sidii dugsiye uga furmi lahaayeen dhulkii ingiriisku uu ka talinayay halgankaasi waxbarashada raggii hormoodka ka ahaa waxa ay ahaayeen maxamuud axmed cali maxamed shire maxamed yuusuf ismaaciil gandhi cabdisalaan xasan suudaani iyo yuusuf xaaji aadan
bishii Sebtembar sanadkii 1930 ayaa kadib markii Talyaanigu ku adkaystay ayaa waxaa la dhammaystiray calaamadinta soodinta u dhaxaysay dhulka Soomaalida inta Talyaanigu xukumayay xilligaasi. Ingiriisku waxa dabeetana uu ku dhaqaaqay in la calaamadiyo soodinta kala qaybinaysay Ethiopia iyo iyaga dhulka Soomaalida oo ay qaybsadeen oo heshiiskaasuna u dhacay sanadkii 1897. si taasi loo meel mariyo guddi labada dhinac ka kooban ayaa walwal meesha la yiraahdo tagtay bishii November sanadkii 1934. haddaba ilaa iyo intii heshiiskaasi kala qaybinaya qabaylka Soomaaliyeed ay Talyaaniga iyo Ethiopia kala saxdeen sanadkii 1908 Talyaanigu waxa uu ku soo durkayay dhinaca Ethiopia dhulka Ogaadeniya. waxaana la shaqeynayay waqtigaasi dad Soomaali ah oo ay ugu magac dheeraan ninka loo oran jiray Oldin oo ahaa suldaan ajuuraanka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay. Ethiopia la fahanteedu dhinaca Soomaalida ma taageero la'ayn. waxaa ka mid ahaa Cumar Samataro oo Talyaaniga ku weeraray ceelbuur sanadkii 1926 una gudbay dhinaca Ethiopia markii dambe. goobtaasi dabadeetana waxa isku dhacay ciidamadii Talyaanigu lahaa ee fadhiyay iyo qaar ka socday Ethiopia. talyaaniga oo midaba ka diyaar garoobay isagu dhinaca Soomaalida ee uu fadhiyay dhinaca Eritrea dagaalkii halkaasi ka bilowday waxa uu dhaliyay in Talyaanigu si buuxda uu qabsado Ethiopia bishii May 7 sanadkii 1936. dagaalkaasi waxa Talyaanigu ay kaga soo kabteen magaxumadii ka soo gaadhay dagaalkii Adwa ee Ethiopia kaga adkaatay sanadku markuu 1896. haddaba dareemadii xagga wadaninimada iyo fahamka gumaysigu waxa Soomaalida uu ku dhashay marka laga reebo dagaaladii sayidku uu galay ee Ingiriiska uu la galay iyo kuwii Biyamaalku ay kula jireen Talyaaniga markii reer magaalnimadu ay bilaabantay oo la degay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. meelahaasi waxa degay askartii ka soo laabatay ololihii Talyaanigu uu ku qaaday dalka Ethiopia. waqtiyadaasi waxa ka bilaabmay dhinaca koonfurta kulamo hoose hase yeeshee waxa Talyaanigu ay cadaadinayeen lacagta ay saareen wixii halis ku noqon kara maamulkooda. dhinaca Somaliland dhaqdhaqaaq ka lamid ah ayaa ka bilaabmay oo ay ka dambeeyeen xiriirkii cadan la lahaa iyo mujtamacyadii badmareenka ahaa ee deegaankaasi u dhashay. waxa kale oo weli ka sii jiray dareenkii halgankii daraawiishta. waxa dardar iyaguna sii galay dadkii wax ku soo bartay Suudaan iyo Cadan. dadkii baraarujinta sameynayay xilligaasi waxa ka mid ahaa Xaaji Faarax Omar oo ka mid ahaa shaqaalihii maamulka Ingiriiska. hase yeeshee markii dambe guubaabadiisii awgeed markii loo adkeysan waayay Ingiriisku u masaafuriyay magaalada Cadan. markii uu Cadan tageen Xaajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoray jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska uu ku sheegayo mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida ah. sanadkii 1935 dad u badnaa ganacsata yaryar ayaa magaalooyinka Berbera, Burco iyo Hargeysa ka bilaabay urur siyaasi ah. waxa xilligaasi soo baxay urur la oran jiray SNS Somali National Society oo ujeedadiisu ahayd horumarinta waxbarashada iyo wax ka qabashada khilaafka qabaa'ilka. sanadkii 1937 shaqaalihii maamulka Ingiriiska ee Soomaalida ahaa ayaa urur samaystay la oran jiray Somali Official Union. markii haddaba uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunyada bishii August sanadkii 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku ka talinayay. hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya ayuu haystay. Ingiriiska ayaa markaasi qabtay labada qaybeed oo Soomaalida markii dambe. waqtigaasi Ingiriisku haystay koonfurta Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ayaa ka bilaabmay siyaasadeed kii ugu xoog roona uguna muhiimsana waxa waa ururkii la oran jiray Somali Youth Club amaba SYC oo bishii May 13 1943 laga furay magaalada Muqdisho kadib markii muddo 7 lagala xaajoonay furitaankiisa iyo dastuurkiisaba sarkaalkii xagga siyaasadda ugu qaabilsana Ingiriiska ee waqtigaasi halkaasi fadhiyay. naadigaasi waxa uu ka koobnaa 13 xubnood. dhiirigelinta ururkaasi raggii ugu xooga badnaa waxa ka mid ahaa Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke iyo Xaaji Maxamed Xuseen. 3 sano kadib waxa rasmi ahaan xubno uga ahaa 25,000 oo qof. sanadkii 1947 waxa naadigii SYC uu isu bedelay SYL waxaana uu laama ku yeeshay Ogaden, Hawd, British Somaliland iyo Kenya. SYL waxa ay bilowday dugsiyo waxaana la dhiirigeliyay fartii Cismaaniyada oo yeelatay muhiimad wadaninimo. aw jaamac Cumar Ciise ayaa inooga warramaya. waa nimankii leegada curiyay 13 leegada ayaa la yiraahdaa. 13 nin
weli kama maqal idaacadaha gobolladay ka kala yimaadeen aan isweydiinne ma reer xamar bay ahaayeen ma reer galbeed bay ahaayeen ma reer bari bay ahaayeen 3 nin waxay ahaayeen reer banaadir cabdulqaadir sakhaawudiin xaaji maxamed xuseen dheere xaaji dheere 3daasu reer xamar bay ahaayeen reer banaadir baa la oran jiray 4 waxay ahaayeen reer mudug yaasiin xaaji cusmaan daahir xaaji cusmaan maxamed xirsi nuur cali xasan maxamuud 4taasna waxay ahaayeen reer mudug 3na waxay ahaayeen shabeellaha dhexe jowhar iyo aagaas ayaan u jeedaaye maxamed cali nuur cismaan geedi raagi maxamed faarax hilowle 3daasuna waxay ahaayeen shabeellaha dhexe 3na waxay ahaayeen gobolka shabeellaha hoose waa maxamed cusmaan baarbe iyo hudow macalin cabdille ninna wuxuu ahaa gobolka togdheer koonfurta magaalada burco maxamed xaaji cabdulaahi xayeysi ingiriiskay u tageenoo waxay yidhaahdeen waxaad noo ogolaataa meel kilaab ah oo aanu ku sheekaysanno waxna ku baranno maxaa yeelay dowladdii militariga ahayd oo ingiriiska ahayd ee markaa dhulkaa joogtay ayaa waxay doonaysay niman dhallinyaro ah oo wax la baro oo xafiisyada iyo ka shaqeeya dhibaato kalema kulmina waa u ogolaaday marka waxay soo saareen 4 qodob oo waaweyn qodobka u horeeya wuxuu ahaa markii horeba waa ugu jiraye wax tacasub qabaliya inaan la sheegin wax kala soocidi inayan jirin wax dariiqooyin ah oo la kala sheegtaa inayan jirin wixii ummadda kala kaxaynaya oo dhan oo tafaruq keenayana in lala dagaalamo xuquuqda soomaalida meel ay joogtaba in la raadiyo shanta Soomaali ee kala goobaan in la isu keeno isticmaalku meelu joogaba in laga hortago oo dhulka laga saaro gobannimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo 5 qodob ayay markii hore dhigeen xilliyadaasi ingiriisku uu wada talinayay soomaalida ee dagaalkii labaad kadib Ethiopia waxa markaaba ay ku jirtay in loo soo celiyo reserve area dhulka la yiraahdo oo markaas heshiis ay kula gashay ingiriiska sanadkii 1942 iyo 1944 heshiiskaasi oo ingiriiskuna ogolaaday talyaaniga oo laga qabsaday dhulka koonfurta Soomaaliyana waxa uu ka shaqeynayay sidii uu isaguna ugu soo laaban lahaa halkaasi sanadkii 1946 ayaa wasiirkii arrimaha dabadda ee Ingiriiska Ernest Bevin waxa uu soo jeediyay in danta Soomaalidu ay ku jirto in wadan kaliya loo wada dhiibo taladaasi hase yeeshee waxa ka soo horjeestay oo diiday Ethiopia 3 wadan ee kale ee dagaalkii ku guuleystay iyaga la fahaantooda miisaan arintaas lama yeelanin 4 wadan ee haddaba dagaalkii labaad ku guuleystay ayaa waxay guddoon ku gaareen in guddi ay u diraan wadamadii Talyaanigu haysan jiray ee laga qabsaday si loo soo ogaado dareenka ay qabaan dadkoodu wadamadaas waxay ahayn Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya bishii January 6 sanadkii 1948 ayaa guddigaasi gaadhay magaalada Muqdisho marka ay guddigu gaareen magaalada Muqdishona waxa ay la kulmeen kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda waxaana kuwa iyagu taageersanaan Talyaaniga loo dhiiba ay la soo baxeen calamadii Talyaaniga iyo halkudhagiya Talyaaniga hase ahaatee guddi waxa ay codsadeen in SYS-na loo ogolaado inay sameeyaan banaanbax ay ku eegaan dadku sida ay doonayaan 11 bishii Janaayo sanadkii 1948 hase ahaatee Talyaanigii meesha joogay iyo kuwii taageersanaa ayaa iyaga oo hubaysan soo baxaysay ay u kala jebiyaan kulankii SYS oo ay qabanqaabinasay halkaasi dabadeed waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo 51 qof oo Talyaani sida ku qoran buugga la yiraahdo A Modern History of Somalia oo qoray professorka la yiraahdo I.M. Lewis haddaba Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo soobe ku magac dheer oo kamid ahaa ragga muddada dheer iyo ku jiray siyaasadda Soomaalida ayaanu weydiinay kuwa Talyaaniga doonayay waxa barnaamijkoodu ahaa January 1948 waadid qodon iyo 3 Talyaani lagu dilay waati dhibaato ka dhacday halkii waa la noqday maxay dhibaatadu ka dhacday la isku dilay waxa la isku dilay groupkii watay Talyaaniga iyo groupka laagada oo qeylinayso oo la masuultooyso iyo iska hor yimaadeen marka qoladan Talyaaniga wadata yahaan horta markaas conference la dhihi jiray waa kuwa adeesha hasaabti kala isu tagtay ahayn maxay doonayeen waxay doonayeen Talyaani doonayeen tan waxay ku doonayaan muddo 3 sano inuu sii hayo inuu yaraan al aqal yani ay la noqdo 3 sano kadib gobonimada la siiyo saasay wateen kontonkii yaa waxa la gooyay November inuu Talyaani meesha joogo
toban sanana istiqlaal dadkan gaarsiiyo. maxaa keenay in talyaaniga loo dhiibo markii la warsaday liida mataliyaan rabtaan laga waxay warsatay quattro power afarta power waxay warsatay afarta power in iyagu hayaan talyaan wuxuu sameynaya asagana lobbying in loo dhiibo wuxuu ka sameynayay United Nationska gudaheeda markii 10 sano loo dhiibay Cabdiqaadir talyaaniga ee leeydi Soomaaliya adiga haynaya ma jireen ururo iyagu markaasi kuwan hore ee aad sheegtay mooje kuwa markaasi dhashay oo kala qaybsamay oo markaa SYL laftirkooda ka soo horjeestay markaas aniga aan joogo SYL yaan haylaan condition kana annaga dhalinyar nin wax garanay dhab SYL buu ahaa dadka dhan SYL bay hayeen markii tayaariga loo dhiibay 1947 March xisbiya digil inuu la aasasay digil maflii marka qabiilkii xaga inta usoo tagtay qabiil ee hore wax kaliya qabiil aan sheeganaynin oo ummad isu keenay oo Soomaali isu keenay oo halka dhigay SYL waatay waxa la bilaabay in lagu kala ordo istiqlaalki SYL waxa ka soo daahiray aniga tayd aragtadayda qabiilnimo aniga waxaan ahaa ragga u horeeyay oo SYL ka tagay sanadkee 1951 bishii November haddaba sanadkii 1949 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa muddo 10 sanadood u xil saaray Talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya 1948 ayaa Ingiriisku isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhex maray sanadihii 1942 iyo 1944 go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23 bishii September sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir ama dadka Soomaalida ay ogaadeen waa kan Umar Artaqaalib sanadku markuu ahaa 1954 xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii u horeysay lagu bilaabay SNS Somali National Society markii dambena isu bedelay Somali National League sheekh waa xarunta tacliinta ee markaa lagu barbaarinayay madaxdii maalintaasi berrito la oran karay waxaanu markaa dawladdii Ingiriiskeena xukumaysa weydiisanay inaanu soo barano dalkayaga that means Somaliland waanu naqaane Hawd and Reserved area ayaanu doonayna inaanu soo baranaan ku nidhi hanaloo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tegi lahayn waayahay baa layidhi markaa dabato meelihii reserved area markaa kamid ahaa ku toosnaa Burco iyo kuwii Hargeysa ku toosnaa iyo kuwii Booramo ku toosnaa ayaan soo wada maray walwal wardheer qarbadahare dhagax buur markaan soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay milmil awaare waxaanu soo noqonay Hargeysa dawladdii markaa Somaliland xukuumadda waxay tiri report soo qora waanu soo qoray report kolka hore waxaanu ka warramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aan tagnay iyo si naloo soo dhaweeyay waxyaalaha caynkaasa laakiin saddex su'aalood ayaanu ku khatinay waxaanu nidhi maxay dawladdu iskuulo uga samayn weyday meelihii aanu soo maray inta ay dhowr intay ka soo kaxeeyaan dhagax buur iyo awaare iyo meelahaas ay amba sheekh amba booramo u keenayaan maxay iskuulo halkaa uga samayn weyday su-aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar Ethiopia ah maxay meesha ka qabanayeen ilaa waa dalkayagii su-aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay Hawd garanay oo Hawd marka Hargeysa la joogo macnahu waa koonfurta Hargeysa laakiin reserved area maxay tahay maxay reserved u tahay nimankii markii ay dawladdu governorkii isticmaalka ahaa ee dawladda mustacmarka ahaa yani wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyey
markiiba London bay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area dabeet waxayna weydiiyeen why macnuhu waa maxay reserved area maxay reserved u tahay su-aalihii aan weydiinay oo dhan bay u sheegeen markiiba dawladda ingiriisku way soo jawaabtay waxay tidhi u sheega waktigii baa la gaadhay ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhexeeyey haddaynu ingiriis nahay iyo dawladda Ethiopia oo la kala saxeixday 1944 taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1897 la kala saxeixday markii xuduudda Afrika la sameeyay 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen intii noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barastaabka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yiri dhulka la yiraahdo Hawdiya Reserved Area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabsaday wuxuu yiri ingiriisku khiyaamay waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed shacbigii inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafdi la yiri lana loo diro waxa ay kala ahaayeen Sultan Abdurrahman Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Abdullah Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Biixi Foley rahimahullah Michael Mariano Abdurrahman Ali Dubbe ilaahay uu naxariisto ayaa lana loo diray sidii aan horeba u sheegnay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa ingiriisku saxiixa heshiis cusub oo la galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay Hawd iyo Reserve Area dhulkii la oran jiray mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka ingiriisku uu wareejiyay waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York April sanadku markuu 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay ugala soo xaajoodaan Ethiopia dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan hase ahaatee uma suuroobin 25 bishii August sanadkii 1956 ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Ethiopia markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Ethiopia وهجاك برنامجكني مكا هالكاس أيان كوشو تشينينا وحانو هالكا كبلابو دونا مركا برنامجكا قيبتي سلاباد